maalmahan istaba jooga nagu adag maqnaantaadu waqtiguna nama weli adna meel fogaga aaday alla doone muuqaaga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan faaniskeyga meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibadba dhul iyo cirba meel walbaad maraysaan waa naga ho filmisa aan la soo dhawaada. waxaa in badan la isweydiinayay oon xaggan maanta iskugu keenay inantii deeqadida halkay ka dhacday talo bartay ku maqantay kulli cid dadka commentiga naga soo weydiiyo mooyaane cid si fiican uga jawaabnay ma jirto waa jawaab manayso ma waqti ay soo noqonaysan warmaanayn laakiin waxa si kedis iyo la yaab leh ku soo noqotay walaashin deeqa maxamed cali deeqadida aad taqaaneen inantii jiniyada aan dhaxgaliyay jinigii aan dhaxgaliyay saas oo taqaanaan waxaan leenahay noo soo dhawow aan kugu dhagnay noo soo dhawow hadalkan iyada ku soo dhaweyn doona waxba hadalka badin maayo noogu soo dhawow baan qoranaa deeqa maxamed cali safarkaagii asxaabta waxaad bal safaradaadii kala soo kulantay afaniskaagii aad ka tagtay waxaad uga tagtay sababta waa lagu xiisayn badan bal waxaad noo haysay aad iyo aad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamay nuutiin taageerayaasheedaba. horta in midaawan ka maqnaa kooxda iyo magaalada iyo Somaliland oo dhanba waxaan safar yar gaaban ku tagay gobolada bariga xagga iyo Puntland. aad baan u salaamayaa dhalinyarada Puntland ugu soo dhaweysay asxaab aad u qaaliya weeyaan oo aanan marnaba ilaabi karin. waxaan aad iyo aad ugu xiisay teamkayga Hope Films oo leeyahay oo dila jooga uma soo sheegay qof aan soo sheegay ma jirin si kedisaan ugu imi marka la arkayna waa aad baad u mahadsantiin walaashayna Faysal Ciisidin ablo garabkayga fadhida Maariya Cakuush iyo Sabaxil Kacasba aad baad u mahadsantiin. waa tahay deeqa maxamed cali runtii aad baan anaga iyo taageerayaashuba kuuga xiisnay waan isleenahay samaha iyo weliba tiimkeeda maadaama inamadii macalinkii weynaa kulli inamadii waxaan igala joogay editorkii weynaa oo imika kamarada noo hayo xaq iyo xuquuq banagu leh inkastoo macalinkii naga maqan yahay xamse qalile waxaa kaloo ugu soo dhaweyn lahaa sabax axmed oo garabkayga fadhida sabaxil kacas oona laabaninantii deeqa kedis bay nagaga dhigtay haddii ayna kedis nagaga dhigi lahayd noo sii sheegi lahayd talo maawur baad usii qalilayd bal yadan weydiinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta marka hore waan salaamay dhammaan asxaabtayda meel kasta joogto gaar ahaan waxaan salaamay gobolkii magaaladii ay ka timi deeq aad iyo aad baan u salaamay. anigu wax kale odhan kari maayo waxaa leeyahay sida loo kacay sahal maahe sigiina deeqa soo socda kulli waxyaalo badan oo aad uga barateen aad iyo aad usta unaga fadhina waxaad uga barateen iyo waxyaalo kale igu soo kordhisatay. waa tahay sabax axmed sabaxil kacas waxaa garabkayga bidix fadhiya cakuush walaashin Maariya Cakuush dadku kale way isweydiinayaan magaca cakuush waxay ula baxdeen balqoshigeedi kulan waxaan isleeyahay arageeda marka la arkiyo cakuushdeedu way isleedahay badii walaashin Maariya kusoo dhaweynaynaa maadaama ay deeqi si kedisa noogu timid haddii ay maxay aheeday dee ay noo soo sheegi lahayd maadaama kedista haddii noo soo sheegi lahayd bal waxay qaban lahayd aan waxaan isleeyahay malaha karoon bay xaflad ugu dhig lahayd malaha isku qalilaabaniyo oo saxismoodiya malaha isku qala wallahi billahi. horta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. taageerayaasha Hope Films dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa iyo kuwayga khaaska ah. horta deeqa maxamed cali maxay tolay sheeg waa inanteeda waxaan ku waa saaxiibadeeda aadna waan u jecelnahay maxay tolay sheeg kidisna way nooga dhigtay run ahaantii maashaheeda laakiin aad baan ugu faraxsanahay qaali Allah idin sharfo. waa tahay walaashin Maariya Cakuushna intaasay kaga baxday kulay dee aan waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay asiga aan fahmay tii deeqadii unka shiga dharagtay ma maqlay saxiiba maqlay imkan waxaa dhinacayga fadhiyo oo gaari kareynin inay ka fogaato meena dhinacayeen soo fadhiisatay heeday walaashin Cabdi Carab Cabdi Ciisi qora qaada sax madila qaadi bal iyada kaligeed kamarada aynu geyn doonaa
bal say u soo dhaweyn lahayd walaasheen deeqa maxamed caliyoon in badan aan u xiisnayn in badan sugaynay sikadiisana noogu timid kulay surprise bani gadhto aad iyo aad noogu farxay markii ay la soo hadashay kulay la margelisay kala soo hadasho masay u hargeysan jooga saa ku naaya nagala tagnay ayada naga tagay marka de anigu subax salaad hore bii soo garaacday wanu qaadan waayay qushi haddana kulay maanta wayna ag fadhidaa yaalkadeeda anaga iska daynayna ilaahay ku hadho abla had ku soo dhaweyn la deeqa waxaan aqaan nahay waa deeqa والله هو كويس حيلا هذه سعيد دمهري وحلوق لله سعيد قيل يحلوق لله يحولين هذا نقول هذا خبر بروح الله وحمان تحول مقال يا انت بنك بسوي تاجي برتا انكو قلنا ما والله kusoo wada yaacine لا ودينا سند وحدي قلاويدين الله يا رب الله يا يقرا يا كو قلا ilaahay bisi انا وقلا aniga horta calooshay maxay tahay wallahi deeqa saaid baan ugu xiisnay runtii boos weyn bay noogu jirtay walaashay bay ahayd imikana dee waa inaga joogtaaba dimaashida bay noqonaysaa markaa imkan walaashay dimaashidii noqon ku rabaa si weynkii inankooda siyaasa allah qabilane gaari dumare dadad garashiyo damir dheere anshaxdooriyo dadnimo badane diinta dhowrahay dhaqandayra diinta dhowra dhaqandayray anna idayeela idugsiyay idareena idadaalay idawe dictor idawe dictor nuu adag maqnaantiinu waqtiguna imaa weli ana meel fog idinkaaday anaa doonay muuqiina ana meel fog idinkaaday misna doonay muuqiina maalmahan istaba jooga nagu adag maqnaantaadu waqtiguna nama weli ana meel fogaga aaday anaa doonay muuqaaga ana meel fog naga aaday anaa doonay muuqaaga mabsaday fogaantana cudurdaa ka murugooday masafada cudur daaray ciladana ka meermeeray udulqaati maadhooyin ciladana ka meermeeray udulqaati maadhooyin muujiyay dadaalkayga macnihiyo jirkayga muujiyay dadaalkayga macnihiyo jirkeena u bandhigay macbuudkeena ducayo adkarmisay balinaanku arka maalin ducayo adkarmisay balinaanku arka maalin ducayo adkarmisay balinaad maruntimado waa tahay intaadan kaga nimaadno soo dhaweyntii balaanayd ee loo sameeyey horta inkastoo dee soo dhaweyntii soo dhaweynahayna tana waxaa la yidhi bariidadana waa sid moogtahay qushi mar haddii kids nagaga soo dhigtay aniguna kolley iska kaaya dareemi kartaa wax iska jaaba qushigeeda inta haddan kaga nimaadno soo dhaweyntii deeqa in waqtiga la qaadanaynay su-aal baa xagga noo taala kolley laba xanuun isku mid ah ayaa ka jira adduunweynaha korkiisa saaran labadaa xanuun isku midkiina waa xiisaha iyo jacaylka qof kasta qof waxaad arkaysaa oo xiisaha iska kaodha jacaylka saaxiib baryahanigu dhacay toddobaad kadib aad arkaysa isagoo qof kale la socda wariyaa walaa sawkii shalay kaasa jeclayn maxaa kugu dhacay ma nacaniyo kanan jecel kana noloshaydii ayaa haya oo ma hebel baan ku roobab cumaan iyo suuriya ka dhacay naxariis ugama soo xareen war soodigii shalay jeclaa walaal maxaa kugu dhacay
su-aashaasaan doonayaa macaawo inaan bal qof kastaaba wuxuu ka aaminsan yahay halkan waxaa la fadhiya cabla carab deeqa maxamed maariya cakuush walaasheen sabax axmed yaano muna faysal bal waxaan doonayaa qof kastaaba wuxuu ka aaminsan yahay jacaylka ama xiisaha inay laba isku mid yihiin iyo bal faqriga waxa dee faqriga u dhaxeeyaan doonaya maanta inaan xagan ka weydiiyo su'aalaha waxaan kusoo horeysiin doonaa horta midab maxaa ka dhanaysaa midabka qablaabe gabdhe walaashan waxaan kusoo dhaweynaynaa sabax bal sabaxee waxaan doonaya inaad daawadayaasha ka qanciso su'aal waxaa jira laba cudur oo isku mid ah jacaylka iyo xiisaha adigu jacaylka maxaad ka aaminsantahay si xiisaha maxaad ka aaminsantahay ma kugu dhacay si xiisuhu marna ma soo maray صاحب جعلك وامر اوكي وانا جعلك وانا وحجرة حيسو وأنا سنت هذا حيسو وحجرة هي أنا جعلك وحن كوا من سنة وحياة بدن واي وحن كوا من سنة هاي قفك مركو قفك جعلي هاي مركو هلو بتري ما نقول آدم معان نحرس تدك أنا دريان سيدو كلا قفك مركو جعلي ويانا مرقو دمات والله لا بدو أنا جالس همر كوري لكن أحمد ويس أحمد كوبولس صحيح تعالك هذا مريسي ما يسمع ما شاء الله أنت لكن أنا حساي مريسي وأنا نيلو يسمو مدمله مرة تو تعال هذا شيء حس ما تفرز حسب ولا ما تعالك ولي تعالك حسا تعالك حسا هريا ما حسا كده بتعالك تعالك هذا حسا ضادي نقدر سوي شو قارسين يقدر ولا على سواش جيب إن صباح أحمد وحي كل تعالك وحكي وني بصور عاد صباحي ود أهل سنت هاي إن صباحي كل سؤال داودياش ود قلت جوابته حد سري إن تعالك وحكي وني بصور عاد مريسنا ينتهي سنة وانا هيا waxaan doonaynaa inaad noo sheegto jacaylka qofka markuu ku dhaco xal dareema saaxiib horta hee Soomaaliyeed baa tiri qof jacayl ku dhaco inaan dhiig lahayn dadku ogeysan ma dhowrsan maayo qof wax jacayl dhiig male daliil kasto kaaga timaado qofka aad jeceshahay ama wax kasto uu kaaga yimaado ma dareemi kartid mana ogaan kartid way dadku in iska hadlayaan taasoo ay dhab tahay صباح وقوي سنتها كبدنا تيجي كان صح يا عارف إذا وقوي صح عادي والله تعرف ما بحكي رسالة إن شاء الله الله يسامحك والله أنا قلت إيمك محمد عليك إيه إيمك محمد علي أنا وان كفر حشي ما كانوا قاعد عندي صاحب قف عليه تعال بان قرصوني قلبي نبركي على نقول أنا وحن قرفات كوس كقبورها كو قاضي ساعة يجوا قرامي قصنا دي شركة يجوا إيش مركي كقبتها قص البان فرحايو وان كلا قبوبة صح ما راح يعكس صح أنت صديق غني معنا بين صباح أحمد كل صباح waxay jir jacayl wiigu dhacay jacaylkeena natiijadiisi waan hay waxaan u maleynayaa Maariya inay wax isla hayso marka waan weydiin doonaa bal Maariya jacaylka xisaan waxa isleey malaha isku mid ma aho anu eeg malaha isku mid ma ahay kala saar malaha waa isku mid isleeyaan malaha isku mid ma aho malaha hada ka daaway hadii isku mid ahay man ka daay kaba soo qaadano ka daay malaha isku mid ma aho جعل حساب كتبوا جعل دلا واي صاحب قولكو قصب معها لبدا قف او اسجعلني اسكور سدان لبا قف او سنعب اسكور سدان لبا قف اسجعل بس كاس وعرف صاحب عرف كي جعل كلا صار واي صاحب لكن هايغو اورانين دي هاي hortu dhigayso dad waxa jira maxay tiray nasiibkii calafku uu ku guuleeyay jacaylkoodii dadku ku guuleeyay ku jira marka hooyadii aabay ku jira okay way صاحب anigu kuma oran dad bay iskuursadeen kala saar xiisiye jacaylka ma wax jira jacayl dhixi jacayl ku jira bas ma kugu dhacay ma igu mudhay intaas baa iga badan صاحب inta hadaynu kaga nimaano Maariya intii ay inoo ka sheegay xiisiye jacaylka kulay jawaab nagu filan ma yisiin laakiin waxay tiri jacaylku wax jira waan aaminsan laakiin ugu mudhay deeqa maxamed cali aanu gudubno deeqa maxamed cali saaxib daawadayaasha waxa loo kala saartaa jacayl iyo xiisaa jira kulay jacayl dadka xiisuhu markuu ku dhacana wax isku maleeyaan jacayl hayo adigu maxaad balka aaminsantay jacaylka iyo xiisuhu inay isku mid yihiin mise inuu jacayl jirin ba may jacaylkii xiiso horta waa kala laba muna faysane jacaylkuna waa wax jira
hees baa tiraahdaa jacayl waa dareen damac weeye aadamiga qalbigooda dego aragtida ku daare marka saaxiib qasab maaha qof bini aadana inuu yiraahdo dee qofka horeba uma aqoon si u jeclaada qofka aragtida jacaylka wuxuu ku geli karaa aragtida ugu horeysa koobaad inkastoo ka helitaan tahay ka helitaan haatay laakiin qofka badana jacaylku wuxuu yimaadaa labada qof markay isku ilbataan okay saaxiib waxaa jira dad kala fog oon haddana is arkin laakiin haddana is jecel oo kala maarmay saaxiib horta jacaylku aragti keliya maaha jacaylku maqalka uu ku yimaado qofka codkiisa labada qof markay kala fog yihiin oo xiriir ka dhaxeeyo jacaylku midna aragtuu ka bilaabma qalbiga marka jacaylku waa qalbiga marka ugu horeysa waana wax la dareemo wax dhakhtar bogsiin karana maaha xanuun fin yaro meel kasoo baxaya la baabiin karayana maaha saaxiib waan kaa ilaawey dhakhtarkii jacaylku soo baxay hargeysa laga furay oo la magac baxay naafada caashaqee adduunka ma tahay mid kamid ah naftaada saaxiib taa qof dhakhtarka qof walba uu noqon karaa waa cilmi nafsi waa qofkan inaad nafsadiisa ka dhaadhiciso inuu wax walba ka maarmi karo sax wax walba inuu heli karo inuu ka maarmi karo naftaada unba la dhiirigelinaya moogtahay waa dadkan jacaylku dib u riday jacayl lama diidin wax jeclow laakiin jacaylkaaga haddaad ku guuleysan weydo وانا نفسيتها ادق نفتها وانا نفتها دي وديقين taas un weeyaan laakiin dawo jacaylka irbad inta lagugu mudo iska seexanaysa ma dhan jacaylka iga baaribe anu xasay malaakiin ba saaxib an ma indhu tula xaslaad kiniin ka soo ibsatid ba marka jacayl igu dhici gaaro dirqi imka meeldooda aan carroon ka baxsaday anu irbad ban kugu mudayaa jacaylka anu kiniinkii gurigeena daaqada saarnaa ma kulaqs kaas laakiin ka hargab ku ha cadceed baa ku dhacday kaas iga jacayliga jacayl uu ka biinayaa waxa la cadceed ya waxa la yiri marka doonaysa kiniinku uu ka biyo jacaylka cadceed u dhiga naacad cadeeda kiniin ku dhacay wax iga biin ma haye amsa barta amsa jacaylka dawladda aanu mani sheegaa ciir baa la lulay subaga laga saaray meel la dhigo baashiyo subaga laga saara la cabe la cunay laga saara burcad kide waxa soo biyo wixii saa u dhanaana dam soo cagto jacaylkii jacaylku dawladda waxaan leeyahay dad doonaysa jacaylka bogstaan ciirta lula waa tahay deeqa maxamed cali kulli waxay la tahay jacayl ku soo dhacay waayo hadalkeeda kaliya dadka qaancinay aynu tagno walaasheen cabla carab cabdicisi jacaylku waxay ka aaminsantahay inuu ku dhacay anu waxaan isleeyahay malaa kuma dhicin waayo wiji jacayl ku dhacay maba ekaba saddex jeer buu ku dhacayaa saddex jirkeedu ku dhacay anaagta kooxda ugu yaraysan muna waxaa jiri jacaylkii xiisuu waa laba wax isku mid ah laakiin saa lagu kala garto ayaa adag amba ma xiisa marka hore ma waa jacayl anu waxaan isleeyahay malaa sumid adu waxaa isleeyahay anu waxaa isleeyihiin horta xiisuu jira laakiin jacayl ma jiro sababta ma jirin aan kuu sheegay xiisuu uu jiraayo qofkan markaad imika ka hesho waxaa laga yaabaa inaad xiisisid muddo daba socoto hadhowtona xiisii kaa baabo bartaa kaaga bao ha jacayli ma jiro jacaylku wuxuu yimaadaa guurka dabaduu jacaylka dhagta yimaada haddaba aan runta ku sheegay anu saasaan isleeyahay malaa jacaylkan lagu sheegaya imika labadan qof waqtiga iska luminaya way isdaba soconaya way isdaba wareegaya laakiin wax jacayl ma jiro xiisahay waana fahmay dhakhtarkii baan wali u tegin wixii baan fahansanay dhakhtarkii jacayl soo baxay baan wali u tegin عامله دكتور wixii baa lagu mudi laa beri hore beri hore laga soo taasoo ku sheegaya jacayl ma jiro laakiin xiisa saaxiib uu jiraa daba naga daa ciyaarta صباحنا sirta caashiqa ay hele sirsir ooda yaa dhig saldhigiisa yaa dhig horta waa su'aal caashiqa miyaa la sirsiyaa mise waa la kala samaysta ولا كان سميت alla xasuusini tahay متاعي متكمدة نفتادو نفتادو متاحي متكمدة نفتادو نفوح جعل يا دبني سيدي ما صباحي سيدي رالي نقولا horta waxa la yiri horta waxa la yiri hore soorano jiray bay Allah ayo rabbigayo maxaa wax isu muuqda Allah ayo rabbigayo maxaa wax isu muuqda كلها هلا لبس سؤالات بنكويتينا لبس سؤالات بس ريلي جابا ديك شويه كويس waxaan ku leeyahay horta markii hore jacayl dhawan kugu dhacay waa taas su'aasha koobaad su'aasha labaadna waxay tahay jacaylkaas haddii uu mid laga tagay yahay hadda wax jacayl ma ku hayaan
inantii una faysalaayadee waa wahdahaysoo laamuusiyey gawdhe deeqa maxamed cali waxay weydiisay su-aal horta markii ugu horeysa jacayl ma kugu dhacay bay ku jira haa igu dhacay saaxib weliba jacaylkii ku dhacay mid la sheegi kariyo waxaaba maaha bal inantanoo iskuul loo soo diray oon waxbarashadan ba u muuqan ka hor waa laga sheekeyn karay saaxib maaha alxamdulilah jacaylu igu dhacay midhihiisina waan hayaa saabir iyo mabsuud baa ifkii jooga ilaahay alxamdulillah laakiinse saaxib jacaylka dhabtii wuu dhintaa goormu laakiin dhintaa saaxib wuxuu dhintaa jacaylka dhabtii marka xilkiisa laga soo bixi waayo qalbiguna waa marka liyaatay sidiisaba waa quraarad jabto dhulka ku dhacday sideedii kuma noqoto haddii macalaa laysku kabo dhegta quraarad ka jabtay xabag lagu dhijiyana waxay noqotaa un badde arki damcid bayna ka sheekeensa jacaylka dhabtina saaxib wax jira laakiin jacaylka dhabtii wuu dhintaa goormuu dhintaa laakiin wuxuu dhintaa jacaylka dhabtii markuu soo baxo jacayl labaad oo nolosha ku aasa ha is odhanin saaxib waxaan la hadlayaa taageerayaasha iyada meel kastoo ay joogaan iyo weliba ummadda muslimiinta meel walbay ku sugayin intana daawanaysa videogan arkaysa waxaan doonayaa inaan maanta kala taliyo waar heedhe intuu jacaylni ku dhaco gidaar ha fadhiisano ha ooyinay isku daya qalbigiina inaad ka saartaan oo jacayl labaad barataan horena waxaa loo idhi horta raggu xagga ha iska joogaani kastumar oo kadaloobka kaaga dambeey kad ka ogeyd maaha sidoodana dumarku marka hore way qalbi jilicsan yihin wayna u nugliyin jacaylka laakiinse haddana wax kasoo kabasho og jacaylka dumarkaa jira raggu kama soo kabto waayo qalbigiisa wuxuu ka dhaadhiciya anu horta waan hadlaa waxaa idhahda saaxib waxaa sida ragga moo qaataa sida ragga kelmad aniga ii muhiima oon eg sababan wataas kelmadaas sida ragguna waxay tahay raggu sidooda waa go-aan adag yihiin meeshay qabsadaan waa loo jaraa laakiinse dumarku ay iska go-aan jilicsanaadaani waa dadka ugu qalbiga fiican marku jacaylku ku dhacayo saaxib ma fahanteen waxaan ii sheegi lahaa dadka jacaylku haya jacaylka lagaga bixiya qalbigooda la dhaawacay anigu qalbigayga mar lama dhaawicino laba lama dhaawicino saddex lama dhaawicine ka badan baa la dhaawacay haddana maanta cid aan jacaylo hayo cid aan maanta intaan farxadayda uga daba fadhiisanaya ma jirto markasta waan dhoola caddeeya taasna waa mid aniga igu beeran oon qalbigayga uga sheekay mid kalena waa nii sheegaya waxaan kala talin lahaa su-aashii kale weydiisayba waxay ahayd yaana dhaafini jacayl imika ma ku haya no jacayl ma hayo aniga imika laakiinse xiisaay haya xiisaasna intuu iga baayo waan sugaya ma fahantiin inuu jacayl dhabo isku bedelo xiisahaasi way dhici kartaa ha iyo inuu baljaajarka dhexda ka jiro labadaasaan sugaya laakiin waxaan kula talin lahaa inta dhaawacan ee qalbiyadooda la dhaawacay gidaarada ka ooyaya bostiyada oohintaa soo dhigaya iska daaya jacaylo labaad samaysta war magaalada qayrkaayo dhan baa jooga maalinba kii aad aragto wad jacayl waad ku beeri kartaa ixdaad ilxaad baad qabtaa maxaad u ooyeysaa jacayl kaco jacayl labaad samayso kii isku kaa walwaalo ka dhaqaaqo mid labaad ka samayso siiba ahaan waxaan la hadlayaa inamadu inta badan waxaa la idhahdaa way qalbi adag soo horta jacaylka u galaa adag laakiin se hadhi torasuuga baaba-aada waayo waxaa idhi geedkii orod lagu koro orod baa lagaga soo degaa haddii maanta intay way iska qalbi jilicsan tahay hablu iska qalbi jilicsayn maalin laba cisho hadduu nin u sheekeeya maalin saddexaad way jecelyihin haddana wax kasoo kabashoog ma jiraan sabab dheh maanta mid cusub bay baranayaan britol mid cusub bay baranayaan saadar mid cusub bay baranayaan ka dhiga qalbigiina sidaasoo kale maxaa iniin diidana qalbigiina sidaasoo kale ka dhigtaan jacayl labaad samaysta iska daadiya wixii shalay toole waxa britolana insha allah way imanayaan noloshaada maanta qurxsan kula talin lahaa laakiin dad idin jecel ka taga leedima lahay ogaade may qof idin jecel ka dheeraanina marna may taasaa really qof idin jecel ka tagani ma odhan anigu adduunka lamaanahan ugu jecelo wallaahi bilaahi tallah dadku waxay doonayaan iska yidhahdaan laakiinse anigu waxaan jecela labada qof ee isjecel laakiin waxaan nacabay kala dilaan mana jecli laba qofoo isku faraxsan in dhexda laga galo oo la kala jaro deetana anigu maanta niyadayda ma aha laba qofoo isjecel intaan u tago inaan anigu qofkii kale ka kaxaystan anigu farxadda la qaato no inta nolosheeda qorxisto qof kale noloshiisa ma baabiinaya wallaahi bilaah kolley xumaanka ma wada intaana waxaan ka wadaa inamow noqda sida hablaha maalinba tii inila dhoola cadayso u dhoola cadeeya ta ini jecelna ha ka dhaqaaqina anigu taas go-aankayga maaha qofka ini jecel haysta laakiinse tii isku kaawaalwaashad fahmi weydo wadada ka mar jacaylsta labaadna samayso intaasan kaga baxayaa xumaanayga maaha tamuna meelo badan baan anagu iska soo shabahno meelo badan baan iskaga mid nahay hadday nolosheedii hore tahay iyo hadday nolosha hadda tahayba
ilaa xad anaguna dad soo asxaabaha ilaa yaraantoodii ilaa adugu intaan hooyooyinka noqonba way ahayd sida ay hooyada u tahay inanka inanta u leedahay baan anoo leeyahay inan aan hooyo wahay alxamdulilah waan ku faraxsanahay masha allah intaas haddaynu kaga nimaadno qiiradii jacaylka iyo naafada caashiqa adduunka ma tahay mid kamid a naftaada dhakhtarkii la furayna wayn tegi doonaa naftaadu أنا بريش waxaan tagay cid raacay diyaari may waan soo eegayaan xusta xisbi jirbaan bes nagada jacaylka intaan kaga nimaadno waxaan haddii imika barnaamijka wuu xirmay laakiinse intuuna xirmay waxaan ka faa'iidaysanaynaa deeqa kulli waxaad ka timi garow dad badanna waad kaga timi asxaabtaada markii barnaamijka daawada xidhay maxay noogu mahadcelin weynaa wallahi hadda bal imika haddaan jaanis ku siiyo inta magaca ugu qiimaha badnaa ee kugu soo dhaweeyey bal halkan nagala wadaagi kartaa sax aad horta halkan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dad qiimo iyo sharaf leh iyo maamuus leh oo si qurux badan ii soo dhaweeyey dadkaas oo magacyadoodu kala yihiin oo ugu horeyso Farduus Aamin iyo Xamdi Jaamac Saciid iyo hablo badan oo adu labada hablood waa reer Boosaaso waa dadkii Boosaaso igu soo dhaweeyay ee rooga casii dhigay hablihii Garowe igu soo dhaweeyna aad iyo aad baan iyagana u salaamaya sidoo kale waa Yurub waxa weeyaan adigu hadda magacaw tiraahdo saaxiibka ma gaarsiiyo horta ha adigu lama soo koobi karo haddaan israada soo magacaw dadkii igu soo dhaweeyay gobolada Puntland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaantood anigoona maadaama inuu ka soo dhaweeyay waa dad sharaf leh waa dad qurux badan waa dad anaguna sidoo kale waa dad lagu soo hiran karo anaga oo badan oo kooxdii hor filimsana waxaan leenahay insha Allah soo wajahan tahay kulli xilli dambe inuu noqoto waan iska sii kala tagi doonaa sabax haddii aan fursad ku siiyo xaqan cidda uga mahadcelinayaan baad ka salaamnida ku qaalisan bal ma inoo sheegi kartaa sabax صح horta marka hore aad iyo aad waxaan salaamayaa channel keenan dad inta ku xiran ee qof ee daawada aad iyo aad baan qof filmis iyo taageerayaasheeda aad iyo aad baan salaamayaa si kal iyo laaba waxaan ku leeyahay markii waxaan salaamayaa hooyadii Nuura Jaamac Cabtan dhammaan waxaan salaamayaa family-gayga meel kasta joogto waxaan leeyahay waan salaamayaa asxaabtayda intii magacayga ma qayb garanaysa la dhigi jiray waa tahay macallin TV-ga daawatan waan salaam waa tahay aan ka xigsiino Maariya xaqani ka soo ololisa isleeto waxa asalaant kulli caajiyada salaam sama file xaajiya aynu ku soo dhaweyno wallahi horta haddaan idhaa qof baan u salaamaya kama gaadhay moogtee laakiin inta muuqayga iyo magacayga ba garanaysaa aad iyo aad baan u salaamaya taageerayaasheeda hor filmis dhammaantood aan salaamay laakiin laba qof ay ku qaaliyaa jira labada qof ay ku qaaliga aan salaamaya waa Raxma Sidiiq Cabdiraxmaan Maxamed walaashaaniga iyo hooyadii Seen Cali Maxamed Cilmi waxaan leeyahay ifka nolol nideeqiyo maxaa la dhihi jiray sax ku noolaada adigu nolol qurux badan oo bini aadanka macnaha ta ugu sareyso bini aadan ku noolaado dhamaan labadina waan jecel dhamaantina waan wada jecelahay oo ka iyo soo kale walaalkay Asmaar waan salaamaya isagana nolol wacan insha Allah waan wada salaamaya tahay deeqa Maxamed Cali haddii aynu ka nimaadno saaxiib dadkii ku soo dhaweeyay haddana halkan fursad ka siiyo yaad ka salaamay family-ga aad baad mahadsantahay halkan waxaan u ka salaamayaa dhammaan family-ga intii ka tira laakiin waa hooyadii macaan hawee Faarax Caarshe aabahay Maxamed habaryarahay dhammaantood walaalahay oo kala Nimco Najax iyo Hibaaq si bulshadu u taqaan Hibaaq Gobaad aad baan halkan uga wada salaamayaa dhammaantood waa tahay waxayna hadhay walaashin Cabla Carab Cabla Cisi iyadana haddii fursad u siina xaqan talooyinka salaamay بس العيس الدين وما سنت مركو هورا صاحبي waxaan salaamay horta dhamaan waxa loo xabartay suuq adiga hadda kaaga shaarka casli iyo timirada madow wixii wada salaamay waxaan salaamay family-gayga gaar ahaan hooyada aan salaamay ayeeyday hooyo Faadma Aadan Axmed Faadma Aadan Gabalos xalay ku jecel kan waa tahay barnaamijku intoona xidhmin aniguna halkan waxaan fursad aan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha tiimka filmis meel walbo ay joogaan kolley bulshooyinta oo dhan anigu waan jecel cid kasta oo shalmad xidhan ama shaal xidhan nin iyo naagba waan jecelay anigu
waxaana si gaar aan xaggan salaan uga tabinayaa curadka iyo curadayda mafsuud cali nuur iyo saabir cali nuur ayaan aada u salaamayaa oon leeyahay hooyo macaan aada iyo aad baan idin jeclahay daawadayaal intaasi waxay noogu soo ameerayaa barnaamijkeeni ama soo dhaweyntiini deeqa maxamed cali jawigeena aan kula yara qaadanaynay goobtana fadhiga waxaan xaggan uga mahad celinayaa macalinkii weynaa xamse qalile iyo dhammaan tiimka hoo filmis editarkeygii weynaa mudin hargeysaawi iyo sidoo kale dadkoo dhan aad baan islaamaya bye bye